maan raxiim odayga Soomaaliyeed boqortooyada waxaan nahay maanta qaaradda Afrika waxay soo hoyatay guushaas horta Soomaali insha Allah midkan way gaaraysaa waxaan arkaa Soomaali hadii ay dadaasho way gaaraysaa qaayada xaj cabaas waa gaara waxaan leenahay in Abiy Ahmed hambalyo dhammaan waxa qaaradda jooga way ku hambalyeerayaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed guul baad u soo hoysatay tahay xagga islaamka iyo haday tahay xagga derisnimada waxaan leenahay wax lagu farxo weeyaan maadaama qaaradan inuu qaaday madaxweynaha ugu wanaagsan adduunka laakiin insha Allah midkan waxaan ka fikiri doonaa oo micnaha insha Allah midar tusaale nooca madaxweynayaasha tusaale waqaa Soomaaliyeed in ay saaso kala noqdaan saaso kale ugu daydaan oo wadan ugu tagaan si ay nabad u soo xasil lahaayeen waxayna fursad u tahay madaxweynayaasha Soomaaliland haday tahay Soomaaliya haday tahay Puntland war maxaa u diiday dadka Soomaaliyeed in ay madaxweynayaashooda saas sameeyaan maxaa u diiday madaxweynayaasha Soomaaliland intay ficil sameeyaan oo Soomaaliya intaas ku ciidan wadna soo ilaaliya maxaa u diiday war maxaa u diiday oo ay iska taayaan cusurnimada taas Soomaaliland waxay ku yeeleen madaxweynayaasha waxay ku yeeleen bilado waxayna ku yeelanahay sharaf war maanta Soomaaliland fursad waxa waa intay ciidan intay sameeyso intaas ku milyan intay sameeyso inay Soomaaliya u dirto si ay amniga Soomaaliya u ilaaliyaan oo looga maarmo ciidamada shisheeye war Soomaaliland maxaa u diiday madaxweyne Muuse Biixi hadii uu sameeyo intaas ku milyan ciidan oo u diro Soomaaliya si amnigeeda loo sugo taas ma ogtahay Muuse Biixi in maanta ku dhigsan lahayd biladaas waxaan leenahay madaxweynayaasha Soomaalida hay isku dayaan inay isfahmaan oo hay isku dayaan in ay isku tamqadaan oo hay isku dayaan deriskooda inay